wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay halka uu marayo xanuunkii shuban biyoodku kaasi oo ay wasaaraddu ku hawlanay dabarjaristiisa. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir ayaa sheegay inay wasaaradda caafimaadku ku guuleysatay ka dabarjarista shuban biyoodka oo saameeyay gobolka Togdheer, waxaana ay sheegeen inuu hadda marayo halkii ugu hooseysay walina ay sii wadaan tan iyo inta ay ka sifaynayaan guud ahaanba gobolka Togdheer. aad baan kugu soo dhaweynaya halkan saacad wasiir shubankii bariyahan u dambeeyay in la ragaadiyay wuu ka soo reynaya inkastoo aanu gaadhin heerkii aynu doonaynay ama aynu doonaynay inaan kaga baxno sababtuna waxa weeyaan iyadoo oo aad moodo bariyahan dambeeto in bulshaweyntii ay sii radhigatay oo nadaafaddu sidaynu doonaynay aan u shaqaynin. marka waxaan u sheegayaa bulshaweynta dhammaantood inaanay joojin dadaalkii ay ku jireen ay ku ilaalinayeen nadaafadda, taas oo hoos u dhigaysa. waxaa jira wadamo badan oo adduunka ah oo xanuunkan aanu ka bixin oo weligiiba uu ku jiro inkastoo numberku yar yahay, sida waddanka Bangladesh oo kaleeto. sidaa daraadeed dooni mayno inuu inagu heerkaas kale inagu gaadho. waxaynu wadaynaa dadaalkii aynu wadnay, waxaynu wadaynaa faraxalkii, waxaynu wadaynaa jaafeelkii aynu wax ku nadiifinaynay, waxaynu wadaynaa biyihii la iska karkarinayay, waxaynu wadaynaa biyihii lagu darayay biyo safeeyaha, waxaynu wadaynaa marka qofka xanuunku uu iska dareemo sida ugu dhaqsaa badan inuu yimaado ugu yeedho gawaadhida ambulance-ka. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa sheegay in lagu guuleystay xakamaynta xanuunkii shuban biyoodka, wuxuuna ka warramay safar uu ku tegay dalka Masar halkaas oo uu kula kulmay mas'uuliyiinta hay'adda WHO isagoona sheegay inay haatan dalka joogaan khubaro baaritaan ka samaynaysa dalka. gobolkan Togdheer oo shuban biyoodku saameyn weyn aad ugu yeeshay, dad fara badan ay xanuunsadeen, geeriduna ay aad u badnayd xilliyada qaar. ilaahay mahadii weeyaan iminka hadduu inaga soo jabay, iskamuu soo jabin ee tallaabooyin wax ku oola iyaa wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Somaliland ay qaaday. tallaabooyinkaa waxaa ka mid ah wacyigelin aad u ballaadhan oo geeso badan taabanaya, sida TV-ga ee wacyigelintii laga sii daynayay, telefoonada SMS-kii laysu dirayay, gawaadhidii samaacadaha siday ee magaalada iyo xaafadaha ku wareegayay, annagoo howlwadeennadayadu ay guri ilaa guri ku garaacayeen albaabada ay wacyigelinta ay wadeen. kooduba safar baan u tegay waddanka Qaahire iyo WHO. safarkaygaasoo la xidhiidhayay ama ku taxalluqnaa xanuunka sidii wax looga qaban lahaa, oo aan ku raadinayay gargaar aynu beesha caalamka ka helno. sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka waxa uu warbaahinta u xaqiijiyay in cisbitaalka la keenay 8 qof oo dhaawac kuwaas oo ku soo dhaawacmay shaqaaqadii maalintii shalay ka dhacday deegaanka Dararweyne, isagoona baaq u diray labadaasi beelood ee dirirtu dhex martay. cisbitaalkan yaalla iminka 8 qof oo dhaawac ah oo Dararweyne ku dhaawacmay dagaal sokeeye oo iminka muddaba soo noqnoqonayay. dadkaasi waa dad la heshiisiyay oo hawshooda la galay. waa ayaan daro inuu dagaalkaasi soo noqdo, waayo dagaal wax allaale wax laga istafiidayaa ma jirto. waxa laga dhaxlaa gabadh weer sidata iyo goblan. waa dad isu abtiya, waa dad isu seediya, waa dad wada dhashay. waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan, inay ka waantoobaan colaadda sokeeyuhu waa waxa ugu xun. colaaddu sideedaba mar kastaba way xun tahay, laakiin ta sokeeyuhuna ka sii daran. ilaahay baanu uga baryaynaa inuu faraj uu dhex keeno. Maxamed Jookar, Ariel TV, Burco.